wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay go'aan in ay xurmayso madaxbannaanida saxaafadda isla markaasina abuurto jawi damaanad qaadaya saxaafadda xorta ah oo guta waajibaadkeeda si waafaqsan shuruucda dalka iyo mabaadi'da caalamiga ah ee warbaahinta Soomaaliland. dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah sharciga dalka ugu sareeya waxa uu qodobkiisa 12 si buuxda u damaanad qaadaya xurriyadda saxaafadda iyo xaqa ra'yi dhiibashada kaas oo qeexaya in muwaadin kasta uu xor u yahay in uu rayigiisa ku bandhigi karo qoraal, hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo waafaqsan xeerarka dalka u yaala. sidaas daraadeed wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dhiirigelinaysaa nidaam ama hab kasta oo qof ama hay'ad ay aragtideeda si xor ugu cabiri karto iyada oo la xaq dhowrayo mabaadi'da islaamka, qiyamka, hidaha suuban ee ummadeena iyo shuruucda dalka u dejisan. wasaaradda warfaafintu iyada oo ka duulaysa qodobka 39 faqradiisa 5 ee xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan oo awood sharci u siinaya inay bixiso ruqsadaha warbaahinta gaarka loo leeyahay isla markaasina la dareensan yahay baahida weyn ee loo qabo in dib u habeyn iyo qiimeyn lagu sameeyo adeega ruqsad bixineed ee ay wasaaraddu u hayso qaranka Soomaaliland. sidaas daraadeed wasaaradda warfaafintu waxa ay mar kale ku wargelinaysaa in dhammaan hay'adaha warbaahineed macluumaadkooda oo rasmi ah ugu soo gudbiyaan wasaaradda warfaafinta ugu dambeyn 16 bisha Diseembar 2020. haddaba waxa aan xasuusinaynaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan in aanay wasaaraddu ahayn hay'ad dakhli ama cashuur ururin balse ay u xil saaran tahay in muwaadiniinta ku wacyigeliso gudashada waajibaadka ka saaran bixinta cashuuraha gaar ahaan hay'adaha warbaahinta ee ay ruqsadaha siisay. sidaas daraadeed waxa aanu ku boorinaynaa saxaafadda gaarka ah iyo dhammaan saxafiyiinta in ay sii xoojiyaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda warfaafinta iyo u adeegista shacbiga oo aanay ku dhaga horjoobin ku-tiri-ku-teendhada aan lahayn nuxurada sharci. waa Mustafa Axmed Samakaab, telefishinka caalamiga ah ee VOS Somali TV, magaalada Hargeysa.